السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك السعادة دون كجوكتان دمان waxaa ku salaamantii salaanta islaamka assalaamu calaykum. waxaan idin rajeynayaa dhammaan bashbash barwaaqo iyo soo kala caafimaad qab. waxaan maanta muuqaalkan kusoo qaadan doonaa gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo ka hadlay habka laascaanood maadaama uu dagaal ka socdaan imtixaanka form 4ka iyo eyrka ay u gali karaan sharaxay caqabada haysata. sidoo kale waxaan isaguna muuqaalka kusoo qaadan doonaa nin xalay toole nin ganacsadaha oo xalay toole lagu dilay magaalada laascaanood. waayahay waxaan ku horeynaa gudoomiyaha daawud axmed ku horeynaa kadibna ninkaasina u tegnaa lagu dilay kaalinta haystay magaalada laascaanood xalay toole. waxaan kaa codsanayaa muuqaalka la garaa share garaa committee wixii reeyaa ku reeb isku day inaad muuqaalka dhameysato oo aad fahanto. waayahay aan muuqaalka isla daawano. gudoomiyaha uu hadalkiisa si wata waxa uu ka hadlay ardayda imtixaanka shahaadiga ku galaysa gobolka Sool maadaama ay halkaasi xaalad ka taagan tahay. arrintaas ah in la isku mashquuliyo runtii inta la isku mashquulinayo mataqaan xafiiskan dhisan horta wasaaradda arrintaas ah in isku mashquuliso runtii sidii laga yeeli lahaa ardayda iyo halkii la marin lahaa iyo horta waa shaqadii wasaaradda u taaleehay. anagu imtixaan baa haydo imtixaan qaadis baan leenahay anagu hawl su'aashii waa gudunay Sool gudoomiyaha waxbarashada daahir wuu og yahay waan u dirnay foomamkii iyadoo xabadu dhacaysaan foomamkii u dirnay inuu arday walba halkuu joogo lagu gaarsiiyo waana ku talagalsanahay arday kasta oo reer Sool meel kasta uu joogo kaliya haduu yahay imtixaanka waa ugu geynaa haduu ilaahay idmo meel kasta uu joogo waan ugu geynaa waana haynaa sawiradoodii iyo foomamkoodii waa la soo ururinayaa iyadoo xabadu dhacayso dagaal ku dhacayay ayay imtixaanaadka foomamkoodu dhex socdeen meel kasta ugu tageen. halay hay'adahan hore waxa wada hadlaynay maamulihii xadariga oo ka wada hadlaynay arday foomku ka maareeyay arday dib oo ka keenayay marka waa aan shaqada xafiiska imtixaanaadku sidii u socotaa baadii sheegay dasaad ninku weydiina ku aragtaan waxaan waa kaalarkii ardayda imtixaanaadka u fariisanaysa sanadkan fasalada sideedaad ayaa imika runtii gacanta lagu hayaa waa fasaladii sideedaad ee dugsiga dhexe iskuulka halka imka ku yaala waxa la yiraahdaa maankaal ayaa la yiraahdaa waxa weey sidaas ay kolka kaarka la keeno loo check-gareeyaa oo waxa weey imka waxa calaamadaha ku yaala arkaysa waxa weey waxaan waa howlwadeenadii khubradii xafiiska imtixaanaadka kolka iskuulka laga ardayga foomkaas loo geynayaa sawirkiisu ku soo dhigay magaciisa magaca hooyada wuxuu dhan saan hadhow wax kale dabadeed waa kaartu imtixaanka hadhow ku qaadanayo ku gelayo ee ID kaarka loogu samaynayo marka meesha hawl yar ma taalo waxa socda ku maamulada abar fadhiil ligtin wuxuu fudud waxa weey meeshan xafiiska imtixaanaadka la yiraahdaa waxa weey waa hawsheedu waa hawl sanadka oo dhan aan kala go' lahayn marka waxa weey imika labada waayo hadalkan haddii halka ka nimaadno gudoomiyaha axmed daawud axmed haddii halka ka nimaadno waxa uu sharaxayaa habka ay reela horta waxa jirta arin iska bareefado oo shakhsiyan ah isaga iyo nin wasiire ka dhaxaysa san jeclahay oo xilka qaadis iyo adiga arrimo noocaas ah taas adiga hadii loo baahdo waan ka hadli karnaa waa la sii eegi karaa macnaa mees xanta xilka laga qaadiyo waxaas waa la sii eegi karaa laakiin muhiimadda u soo galay waa xagan kale weeye waa muuqaalkan u soo diyaariyay horta waxaad ka arkaysaa macnaha qaabka loogu furfuran yahay ama qaabka uu ugu furfuran yahay ardayda meel kasto ay magaranaysaa Somaliland ka joogan ninka daawud axmed shakhsiyanna inta aan taariikhda ka hayo waa nin aad iyo aad dhan kasta security ahaan shahaadooyinka dhan kasta waa nin ka dhisan imtixaanaadka adiga cidii iyo isku way garanaysaa xaggaas waa nin aad magaranaysaa ugaad adag waa nin xagga qaranka xaggu ka xigo ama qaranka hawsha uu hayo waa nin gudan kara. waayahay arrinkiisa haddii aan si yara iftiimiyo laascaanood waxa uu sheegay inuu xataa waraaqi edhikaarka ardayda foorka iyo eyrku ay ku gelayso maadaama iskuulle waaweyn ay ku yaaleen magaalada laascaanood in uu diyaariyey laakiin loo baahan yahay sawiraantoodii kurtahayd oo aad wada taqaanaan ee shahaadada hadhowtoo lagu soo dhejinayay iyo edhikaarka iyo waxaas loo baahan yahay oo sawiradoodiina inay foomkii oo loo geynayo ma garanaysaa ayuu sheegay oo ay weliba diyaariyeen
kadib marka ay edhikaarka helo edhikaarka ayuu qofku kii eidhkaha iyo kii foorka haba itixaanka hadhow ku gelayaan qaabka ay u gelayaan iyo dee waxaasna edhikaarka loo saasay adiga noqonaysa hawsha noocaas kulle ayaga wadadaas u taallaa wallaahi arrinkaasi ma aha arrin sahlan maaha in reer sool qof uula kasoo bilaabay oo 8 sano iskuul soo fadhiyay oo sanadkii welibana bilihii u dambeeyay shahaadada eidhka qaadanayay qas ku furmay magaaladiisii oo sidaas shahaadada eidhka kaga haray wallahi waa wax adag soo kale arday isaguna فوان كبلا ولا أفر سنة يسوون شهادة سجاي ويسنا شهادة كهاري فورك ويسنا ودبعتها كله وآدي آدوين هذا تولي هذا عن إيجا قولوا تغير سيو مرك والدين تي صوت عبتي وأن أجنها هاي أنا قد سومال لا أجنها هاي قابك عيت هاي أرضي فورة أفر سنة قاش لا دبتهجنا بشي سلا دبتهجنا مركز لا دبتهجنا وهذا ده مقرن ساعة وحوي بشي أو وحوي شهادة قادم لها أو قسقيمي أما بسالك تحكوا بلو تحكوا فلسطين قسقيمي والله والد كورتا وحي دريمة يعني وحير معها أساقنا كوسي دربا مستقبلها يدن كستبا كسي درن أساقنا وما أنت سنة كدن بي إنه تشانس كانوا كله هلين بالغي يابا وقفكو هدي أو وحبرشادو أو يكالقضو وقفكونا دادا oo ku jiro sida sibinka oo kale eedka iyo dad aan qof eeda waan garanaa waa 18 iyo 20 ka yar ay inta badan ardayda eedkii foowan kale waa 25 iyo 30 ka dhaxaysa iyo 28 ka dhaxaysa ay u dhaxayaan adiga kuwaas la garay laakiin ardayda eedka oo kale qofku hadii uu hal sano ama 2 bilood oo waa waxa fasax yarna loo siiyo 15 bil ka dhaxaysa fasax weyna 2 bilood uu yahay marka hadii qof 4 bilood oo xiriir aan wax salaada kicin aan waxba ma garanaysaa aan wax barasho tigin aan shaqeyna qofku aad u adkaanaysa ma garanaysaa sidoo waa waxyaabo marka ay qofku nolosha ka dhaco waa marka uu inta leeyahay 15 ilaa 20 u dhaxeeyo weeye marka aniga ma garanayo fursad uu ku soo celin karo shahaadada dhaafis soo kale noloshiisa rabar bay ku noqonaysaa sanadka dambe waxaad noqonaysaa qof aan garanaysaa wax barashada ay ka gaarin ilaa deynta aad ka dhimaso waa iska qoomamaysa waxbarashada dugsi hoose ma dhamay waa dugsi dhexe ma dhamay waa dugsi sarana iyaduna waa soo kale meel kastana way kaaga hor imanaysaa meel kasta oo aad tagtana labada shahaado iyo way kaaga hor imanayaan sibahan ta eedka si muhiimsanaat waliba marka aniga ardaydaas waxaan jeclaan lahaa fikir baan iga soo gudbin lahaa oo kulli ayaga shaqada leh magarasa wasaaradda iyo gudoomiye Axmed Daawud waxa ayaga shaqada leh wasiiradii dadkaas ayaga shaqada leh laakiin hal fikir baan ku darsan lahaa oo ay ardaydaasi si nadiif ah imtixaankooda ugu gali karaan haddii suurtagal noqoto fursad maskaxda aan ku darsan lahaa waxa weeye maadaama sool imika qaski sii wada gaarayo oo kal waqti ka sii dambaysa xabadii sii hurayso aniga shakhsiyan waxa oran lahaa ardaydaas marka maadaama uu xataa macallimiin iyo waxaas iyo ay jiraan oo de macallimiin meesha joogto maamulayaasha joogan iskuulada sidoodii markaas normal ku shaqeynaya laakiin wada meesha qastahay hal lagu wareejiyo amaanka ardayda inta la soo tiro koobo in cambaashaha lagu wareejiyo taliyaha lagu wareejiyo amaankooda soo u sugo ayagana amaankooda u sugo meesha ay imtixaanka ku galiyaan iyo waliba waqtiga ay intooda xataa hal qabo ayaan online qarashkooda kale iyo dashaada imtixaanka iyo wixii kale ayadu waa halkeeda oo waalidiin bay leeyihiin laakiin amaankooda iyo waxa intay cunayaan inta ay meesha ay laba imtixaan galayaan haddii xataa bil qaadanaysa haddii 2 bilood qaadanaysa inta ay joogan ma garanaysaa ama uu dugsi board ahaan weyn ha aado ama meel weyn ha ahaato meel gaar ah oo taliyahaas reer soolka ah ee ina cambaashe hal lagu wareejiyaan aniga oran lahaa waxbarashada saaha ku galaan haddii aanay ilaahay xabadan qaboojin anigu maskaxdaasan ogolaa aniga ma garanaysaa soo jeedin lahaa weliba haddii doon meel gobolka soolba ka baxsan ama sanaagta ha noqoto ama tug dheerta ha noqoto ama saaxil ha noqoto ama awdal ha noqoto ama haddii doonto haato maroojo xargeysa dhankaas ba ha noqotee fikirkaasna aniga shakhsiyan u soo jeedin lahaa dadka hawsha shaqada ku haya haddii ay macquul tahay weeye waayahay dhanka kale waxa xalay toole magaalada Laascaanood lagu dilay nin kaali shidaal haystay oo mas'uul ahaa oo ganacsade ahaa oo magaciisa lagu magacaabi jiray Jaamac Awil Kaliya xogaha qaar way sheegayaan xogaha horta arig ninkii wixii lagu dilaa macquula waxa la yiri ninkan waxa lagu dilay shidaal ba lagu dilay baa la yiri shidaal gaari khasab ku shub maayo
arrinkaas lagu dilaa leeyahay ninka siday xogu sheegayaan laakiin xogo kale ayagoo sheegaya in la qabtay ninka baa noqonaya shakhsigii adiga hadda afraad ee lagu dilo magaalada Laascaanood inta ay Soomaaliland ka sii magarasa maqnayd ama intii buurta ka sarreysay fadhiday arrinkaasina wuxuu ku dhacay xal tolo magaalada Laascaanood xogaha qaar waxay sheegayaan in la qabtay xogaha qaarna waxay sheegayaan in aan la qaban labada arrin ayaan soo qaatay oo maanta arrinkaas aan ka soo qaatay barnaamijkeena inoogu soo qaatay waxaan ka codsanaya muuqaalka la garee share garee commentiga insha Allah wixii ra'yigaaga hadii Ilaahay awood la yiraahdo ku reeb maanta muuqaalkeenu intaas ayuu khuseeyaa